جمهورية الصومالية مانتا ما هي ستو مثلات يوح مثلها عدد صومالية دو مثلها ونتاقن جمهورية الصومالية مانتا ما جيران مركرونتو لاحظو جمهورية دو ودي عنتهاي ولا كلا دانيستي والإلوبي ولا ديعي تان waxay keentay in dadkii ay dhibaatoodaan dadka bulshadii ay qaxar iyo mushaakilaad ka bixweyso ay booy jamhuuriyadda ay dhaawacanto oo ay wax soo gaaraan ama ay jamhuuriyaddu marxalad xun ay ku jirto marxaladda waxay saameyn ku yeelanaysaa shacbiga ku nool jamhuuriyadda waana marqaati ayaan ka nahay waxa ka socda Soomaaliya maanta dal walba dhibaato maraa Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya taariikh bay leedahay marxaladay soo martay kama duwan wadamada adduunka dhibaatada ay soo martay iyo xaaladaha ay ku jirto waa wax la fili karo ku dhaca jamhuuriyad walba oo adduunka tirsan ama way soo martay ama way mari doontaa ama haddii ku jirtaa kuwii soo maray dhibaatooyinka waaweyn soo maray way ka faa'iidaysteen qaar kuwii fiicnaa oo caqliga lahaa abaabulnaa way ka faa'iidaysteen oo bulshadooda istaageen oo yiraahdeen waa inaan ka faa'iidaysanaa dhibaatadan mar dambe sidaas u soo noqonin waxaana dhisteen nidaamyo runtii aad iyo aad u horumarsan waa meelaha usoo qaxnay noloshan usoo doonanay Soomaaliya way ku cusub tahay qarannimada iyo dowladnimadu way ku cusub tahay 60kii ayaan runtii dowladnimada dhanba qaadanay waxaan laga joogaa waado 57 sano laga joogaa maaha wax weyn maaha midda kale waxaa loo baahan inaan xasuusano dalka Soomaaliyeed nidaamka maadaama uu ku cusbaa ma ahayn nidaam uu yaqaan dadka Soomaaliyeed ee diyaar u ahaa inay ku dhaqmaan dhaqan ahaan weligeed dowlad dhexe maana samaysan dowlad dhexe oo bulshada Soomaaliyeed u talisay bulshada Soomaaliyeed weligeed ma samaysan nidaamka dawliga ee cusub ee 60kii aan samaysanay wuxuuna farayaa inaan yeelano dowlad dhexe hal hogaamiye inaan yeelano hal baarlamaan inaan yeelano degmo walba inay hoggaan yeelato qaabkii abaabulka bulshada qabiilka ahana mid ka duwan in dadka loo abaabulo oo degmo ah degmo walba inay hoggaan yeelato degmooyinka gobol in loo sameeyo gobol walba inuu hoggaan yeesho iyo wax la mid ah bulshadu inay noqoto bulsho qaran ah oo aysan noqon qabiilooyin kala duwan wadanigu inuu noqdo wadani u dhashay dalka daacadna oo dalka uusan noqon ka tirsana qabiil daacadnimadiisana qabiil siiya iyo waxyaalahaas ay jamhuuriyaddu nidaamka dawliga ah wataa annagu waxaan ahayn bulsho ku dhaqanta qabiil jufo walbaba ay leedahay ugaaskeeda maaragtay jufo walbaba ay leedahay ugaaskeeda caaqilkeeda suldaankeeda boqorkeeda gaarna ay mid walba u tashato haddaba bulsho noocaas haddii la soo dhex dhigo kursi ee la yiraahdo kursiga waa hal qof hal madaxweyne inuu ku fariistaa iyagoon ku heshiin sida isaga soo xul lahaayeen iyagoon ku heshiin siday maaragtay isaga soo dooran lahaayeen waa la filaya inay caqabad ka timaado sidoo kale haddii la yiraahdo bulsho baarlamaan samaysta iyagoon ku heshiin siday baarlamaanka loo soo xul lahaa meelay laga soo xul lahaa matalaad uu sameyn lahaa mushkilad inay timaado waa la fili karaa sidoo kale degmooyin haddii la abaabulayo degmadaas sidii loo abaabuli lahaa deegaanka dadkii deganaan lahaa yaa iskale degmada ma bulshada Soomaaliyeed oo dhan baa iskale mas dadka meesha degan baa iskale waxaasoo dhan haddii bulshadu go'aaminin ayadan way adkaanaysaa in la sameeyo gudoomiye marka nidaamka dawliga ah ee nagu cusbaa wuxuu u baahnaa in loo gudbo lana bar dadka Soomaaliyeed haddaan soo koobo in dadkana la qarameeyo nidaamka Soomaaliyeedna iyo ismaamulka Soomaaliyeedna laga soo dhaqaajiyo qabiilka ee la qarameeyo isagana labadina ma isdhaceen mushkiladda Soomaaliyeed maanta jirtana salka waxay ku haysaa halka waxna looga baahan yahay maaha inaan jamhuuriyaddii burburino oo la dagaalano laakiin inaan ku jihaysano inaan xalino qaladka isaga ah ee dhacay gumaysigii Talyaaniga wuxuu nisiyay 4 sano oo ku meel gaar ah 4 sano wuxuu yiri waxaan u diyaarinayaa dadka Soomaaliyeed inay iyagu ismaamulaan 4 sano dadkii lama diyaarin laakiin waxaa la sameeyey dowladda la sameeyey prime minister la sameeyey waxaa la sameeyey wasiiro baarlamaanna waa la sameeyey iyadoo dadka loo sheegin inay yihiin bulsho qaran ah inuu wadani yahay qofka ka tirsanaa bulshada Soomaaliyeed in looga baahan yahay qof walba inuu daacad u noqdo qaranka bulshadii on transformation lagu sameyn oo isbedel lagu sameynin ayaa la yiri dowladda tiin waa kana qaata waa la fil karaa colaad inay ka timaado marka meesha waana wax dhacay wax kastoo aan haysana maanta jamhuuriyadda Soomaaliyeed haysta waxay salka ku hayaan qaladka isaga ah oo waaga dhacay haddii bulshada la abaabul lahaa la sameyn lahaa bulsho qaran transformation rasmi ah duu dhici lahaa qaladaad ka dhacay maysan dhacin taa waxaa ka abuurmay
mushkilado soo wajahay qaranka Soomaaliyeed oo mushkiladaas oo mushkilo arrimaha gudaha dadka Soomaaliyeed isticmaalku maysan jeclayn way la dagaalameen way iska caabiyeen dad yani la falgalay isticmaalka maaha sida daraadeed naxariis looma hayo tiina waxay keentay in dad dawladda Soomaaliyeed markii ay dhacday oo sababtay u dhacdayna ay ahayd sabab ku lug leh qaladka dhacay 60kii ee aan dadka loo transform gareyn inay qaranaan isku maamulaan markii ay dhacday dawlado badan ayaa fursad u helay kuwa dhul naga maqan haystaan noqdaan kuwa kale oo danihii ay naga waayeen maaragtay danihii ay naga lahayn naga waayay waagaan dawladda ahayn ha noqdaan kuwa ka soo horjeeda siyaasadda ee dawladda Soomaaliyeed qaadatay ee ahayd inay taageerto waddan walba gumaysi lagu haysto maadaama dalkeen uu maqnaa oo aan ahayn anagu dad gumaysigu uu si gaar u saameeyay in siyaasad noocaas ay dawladdu qaadato ay la jirto waddan walba oo xorrimadoon ah sida Mozambique Angola iyo waddamadaas oo dhan dad badan aan jeclaysan kuwaan markii dawladda ay dhacday waxay u arkeen fursad Soomaaliya in looga faa'iideysto marka cadow badan baan lahayn welina leenahay anigoo cadow ayaan meel dhulkaa ku dhacnay maanta taam maxaa ka yimid maxaa ka abuurmay marxaladda had maanta aan ku jirno maanta waxaan u jeednaa in dawladihii Soomaaliya danaha ka lahaa ee maanta ku guuleysteen Soomaaliya inay waxay rabaan ka samaystaan dawlad bay samaysteen ayagu maalgeliyaan waardiyeen waxay rabaan ay ku sameeyaan waxay sameeyeen dawlad goboleedyo haddii ay wax ka waayaan dawladdii dhexe waxay sameeyeen dawlad goboleedyo inay baabulaan laba dal haddii ay tartanto oo mid uu ku awood badiyo ama mid uu ku guuleysto inuu taageerada dawladda dhexe helo kan kale wuxuu ku ordayaa goboladii markaasuu aawale wuxuu leeyahay dawladda ma shaqaynayso tan waxay ku tusaysaa aasaaska dawlad goboleedyada iyo dawladdan Soomaaliya hadda ka jirta in ay tahay in aan qarankan Soomaaliyeed oo cagihiisa ku istaagin in loogu talagalay waana wax la fili karo in ay ku fikiraan qarankan Soomaaliyeed inuu cagihiisa ku istaagin wax la fili karo waayo wax kastay ka fushin karaan hadda qof walba dan kale laakiin waxay u taallaa annaga oo shacbiga Soomaaliyeed ah sidaan arrinta u wajihi lahayn sidaan u dhihi lahayn waddamada raba inay dhulka nagu sii hayaan oo nagu siriixaan maxaa la yiraahdaa dhibaatada inaan dhahno ma idinka yeelayno dhulkan anaga iska leh dad nool ayaan nahay ma aqbalayno inaad nagu maaragtay sii haysaan dhibaatada annagaan laga raa Soomaali haddaan nahay hawshaan waxaa la rabay hoggaanka Soomaaliyeed inay galaan hoggaankii Soomaaliyeed ee maanta dalka fursad u hel inuu hoggaamiyo wuxuu ka bixi laayahay inuu u adeego waddamo shisheeye waana wax maanta socda waxay isku haystaan dal dhan baa baaba'san oo burbursan oo raba in loo gargaaro weliba gargaar degdeg ah in la badbaadiyo u baahan dawladdii dhexe iyo goboleedyadu waxay isku haystaan maanta anigaa la jira Qatar maye anigaa la jira Sacuudi Arabiya labada dal waxay isku dagaalayaan dana ayaga u gaar ah oo arrimahooda gudaha ah waxa ka qoseeya dawladda Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya waddamo shisheeye maxay tahay waxa ka qoseeya gobol Soomaaliyeed maxay tahay waddamo shisheeye midda kale aqliga dhigay in dawlad goboleedka ay ka soo horjeesato go'aan dawladdii dhexe xaguu ka yimid adduunyada kama dhicin waxa macquul ah maanta inay soo Mareykanka in gobol ka mid ah inta soo baxo California inta soo baxdo dhad North Korea heshiis la sameysanayo ma dhici kartaa wax aqli gal maaha laakiin Soomaaliya way ka dhacaysaa sababtuna wax kale maaha gobolada iyo dawladda dhexe inta waxa sameystay shisheeye hawsha hadda ay wadaan oo mid walba uu mid u adeegayana waxay ka mid tahay qorshihii loogu talagalay inay qabtaan looguma talagalin inay Soomaaliya u adeegaan way Soomaaliya ma samaysan waddamada shisheeye dalka way yimaadeen dawladda ayagaa samaystay ayagaa yir annagaa maalgelinay ayagaa yir annagaa ciidamo ilaaliya u keennay ayagaa yiri gobolada annagaa siina caawinaad lacageed oo aan ka soo aruurinay canshuuraha laga bixiyo dalalkeenna kuna maalgelinayna goboladan sidaa daraaddeed annagaa go'aankaa rabna ka gaarayna waxaa rabna ka samaynayna booskaas ayay taagiyiin waddamada shisheeye dawladda ma dadka Soomaaliyeed iska leh oo ma dalka Soomaaliyeed ayaa la rabaa inay u adeegto oo ay dadka Soomaaliyeed u adeegto mise inay shisheeye u adeegto haddii aan u ogolaanno shisheeye u adeegaysaa haddaan ka diidno
oo aan mas-uuliyadda ah qaadno dowlad inaan anagu leenahay aan dhisano maal gashano siyaasadihii ay ku shaqayn lahayd anagu u samaysano siyaasadaha aan ilaashano kana yeelin in la burburiyo laguna xadgudbo in dowladda anaga noo shaqaynaysaa haddaba waxa maanta ka socda Soomaaliya ee ah in siyaasaddii qaranka ee la rabay in la dardargeliyo in nabadgelyada la sugo in xasilooni la soo celiyo in dagaalka sukeeya dalka laga saaro in faragelinta shisheeye ee dalka lagu hayo la xadido waxna laga qabto in bulshadan baaba'san ee la kala daadiyey la isku soo dhoweeyo in jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee maanta la cuuryaamiyey calankii la bahdilay qariidadii Soomaaliyeed ee la bahdilay ee qolo walbaba ay leedahay meel gaar iska leh intii la badbaadin lahaa oo waddankan nafta lagu soo celin lahaa maanta in la yiraahdo waxaan waqtigeena ku luminaynaa fikirkeena ku luminaynaa dhaqaalaheena ku luminaynaa inaan ku dagaalanno sidii aan u kala raaci lahayn ama qoladii aan raaci lahayn Sacuudi Carabiya ama Qatar dowlad nooce ayaa saa samaysa dad nooce ah ayaa ogolaada hoggaan noocaas inay horkacaan waxaan la aqbali karin waana wax loo baahan yahay inay istaagaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed dhibaato ay soo martay welina way ku jirtaa jamhuuriyad walbana way martaa dhibaato dadkeeda ayay u taallaa inay u istaagaan inay ka saaraan jamhuuriyadda dhibaatada xalistaan mushkiladaha dhexdooda ah isla markaana ka shaqeeyaan siday ula xaajoon lahaayeen arrimaha dibadda bulshada ayay u taallaa dal walbaba dhibaato soo maray dalkeenana kama duwana waxaan maraynaa dhibaato waana mari doonaa mid kale anagay noo taala inaan ka baxno anagay noo taala inaan dalkeena abaabulino anagay noo taala inaan dalkeena ka dhigano dal nabadgelyo iyo xasilooni ay ka jirto dadkiisuna ay nabad ugu nool yihiin adduunkana laga qadariyo anagay noo taala laakiin markii annagii aan isu qaybino qabiil oo aan siyaasad qabyaaladaysan iyo mid ku salaysan kooxad diineed oo dibadda laga maamulo iyo mid ku salaysan taliya kooxeedyo iyo siyaasiyiin qabiilku adeegta oo ayaguna dibadda laga maamulo bulshadeenina saa aan ku tafraaruq aan ku galno oo ayaga aan la kala safano oo aan difaacno qadiyad shisheeye وأن دفعنا قضية شيء أنا أقول أك هجانك أن دفاعي إنه أذيع قضية شيء سيد ما أنت سعتوك لك كوا حيلين قادر إن الرعاس أحسن كوا حيلين إن مارتي إن سعودي الرعاس أحسن لا بد إن الرعاس أحسنه واحد أحسن دولة إن قبضته ولا لوجب به لو إجمالي هذه دولتها الصومالية أرمها جودها الصومالية شعب الصومالي ومتى الله إن السياسة دا كهلان ومتى الله وحقوت الله إن اللي حسابته من دولة ورمحان نقبتين إسكولات مفرتين نبتقلي ذا حق مريسا فرقلين تدلك الوهايو محاكا قبتين أي ويا ذلك الصومال ما إن اللي كرسفتان قبل هذا الصومال ما أنت لبي أكل قيب سمان كونه وحواي كوكا أبو رمي فشل كي جبهه سياسة ده وحا أبو رمي سومالان وحا أبو رمي بنتلان وإحنا كأبو رمين فشل كيمة جبهه سياسة ده الدولة دي markii la riday ku fashilmay inay dawlad badasho dhisaan maadaama ay kala qaybsanayeen qaybta labaad waxay tahay qayb ka abuurantay arintan la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya lagu soo galay ee xilligii maxkamadaha kadib abuurantay markii dadka Soomaaliyeed beenta loo sheego in Itoobiya dalkii ka baxday iyadoon ka bixin ayaa waxa dhacday in ayagii Itoobiyaanka Kenyaanka inay heshiiyaan ayagoo magac idig wax ku sameynaysta la socotaan loo dhiibay qorshe lagu taageero hay'adaha caalamiga ay ku taageereen ay dhahaan waxaan sameynaynaa dowlad goboleedan u sameynaynaa South East Central Somalia waxay ku bilaabeen Jubbaland waxay ku xijiyeen South West waxay ugu magac dareen ama koonfur galbeed ku xijiyeen waxay ku xijiyeen Galmudug Hirshabelle ku xijiyeen intaba sidii ku abuurmeen waa la wada socnaa haddaba kuwan waxaa loogu talagalay in formulaha Soomaaliya iyo Puntland ayagana lagu dhiso markii inta la dhameystiran qaranka Soomaaliyeed in mid walba gaar loo maamulo marka fiiriso hadda Puntland dawladda hoose waa af laakiin kama heebayso kama amar qaadato Soomaaliya iska badaa Galmudug sida ayaa laga rabaa Hirshabelle sida ayaa laga rabaa Jubbaland saas ayaa laga rabaa South West saas ayaa laga rabaa haddii dawladda iska amar qaadan marka iyaga ka amar qaadan doonaan waxay ka amar qaadan doonaan shisheeyaha markaas sameystay ee danaha kale dariska ay noqon karaan
waxay noqon karaan wadamo khaliijkay noqon karaan, waxay noqon karaan reer Yurub ay noqon karaan, waxay noqon karaan North America, South America ay noqon karaan, wadan walba noqon karaan. inta haddii lagu guuleystana qarannimadii Soomaaliya meesha ka baxday, jamhuuriyadda Soomaaliyeed ma jirto. Simbile haddii gobolkii uu ka amar qaadanayn dowladdii dhexe, kala dambeyn ma jirto, dowladda Soomaaliyeedna ma jirto, qarannimadii Soomaaliyeed waa meeshaas ku baaba'aysa. waxa loo socdo na wax kale maaha inaan la helin qaran Soomaaliyeed oo maamula meeshii qaranka Soomaaliyeed uu wax maamul lahaana in lagu bedelo gobolo shisheeyuhu maamulo waxay rabaan ay ka sameeyaan. waxaan yeeli karno oo aan ogolaan karnana maaha. jamhuuriyadda Soomaaliyeed xaaladeedu waa taa. waxay u baahan tahay badbaadin, waxay u baahan tahay difaac, waxay u baahan tahay in laga qabto cadowga maanta ku habsaday in laga qabto. qalalaasaha iyo dhibaatooyinka jamhuuriyadda ay wajahayso in loo istaago in la xaliyo waxna laga qabto, laakiin aan la sababsan dhibaatooyinkaas oo aan loo sababsanin in la burburiyo jamhuuriyadda. waa loo soo dagaalama calanka Soomaaliyeed. in jamhuuriyadda la sameeyo dhiig baa u soo daatay. siyaasiyiintii dhiigga daadiyey iyaysan gogol xaar fiican samaynin, laakiin meel bay soo gaarsiiyeen. waajibka saaran jiilka hadda jir wuxuu yahay inaan ilaalino wixii maaragtay laga soo shaqeeyey, inaan ilaalino marka hore, wixii ka qaldan inaan saxno, jiilka soo socdan u gudbino. waajibka ayaana saaran. nama saarna inaan burburino jamhuuriyadda Soomaaliyeed. qofka ku abtirsada jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee qariidadeedu adduunka aqoonsan yahay, calankeedana la yaqaano, waajib ayaa saaran. daacadnimadiisana waxaa xaq u leh jamhuuriyadda Soomaaliya, ama awdal joog, ama waqooyi galbeed joog, ama mudug joog, ama joog sool, ama joog hiiraan, ama joog bakool, ama joog jubbada dhexe, ama joog jubbada hoose, ama joog shabeellada hoose, ama joog shabeellada dhexe, ama bari joog, ama nugaal joog, ama sanaag joog, ama togdheer joog. meeshii aad ka joogto Soomaaliya, waajib ayaa kaa saaran in aad daacadnimadaada siiso jamhuuriyadda Soomaaliya. waddan walba waxaa badbaadiyey waddanigiisa. fikradaha burburiyey waa fikrada aad u qaldan, waana waxaan u baahanaa inaan xallino. laakiin maanta haddii aan ogolaanno qaabkay wax ku socdaan inay hirgalaan, jamhuuriyadda Soomaaliyana ma jirayso. hadday jiri weyso jamhuuriyadda Soomaaliyana shacbiga Soomaaliyeed waa ku deeyeen. wixii loo soo halgamay, wixii loo soo dagaalamay, wixii la soo dhisay, qadiyaddii loo taagnaa in lagu burburiyo caatifad qabiil iyo siyaasiyiin garaadkoodu aad u hooseeyo fikir ay wadaan oo ah qabiil hebel iska dhici, qabiil hebel iska dhici, oo tartan dowladda qabiil ugu tartan iyo intay ku fikir lahayn inay transformation ku sameeyaan siyaasadda oo qaladaadka jira xaliyaan, inay dadkii qabiil u kala abaabulaan, qor isugu dhiibaan. siyaasiyiin garaadkoodu intaa yahay haddii aan la kala safarno, intaan daacad u noqon lahayn dalkeena oo aan dhihi lahayn waa qaldantihiin, waxaan qodaynaa qabrigiina lagu doogi lahaa, ilkeenaan ku qodaynaa. taana waxaan ogolaa karna maaha. waa ka qabweynaa intaa, waa ka dadnimo fiicannaa intaa, waa ka fac weynnahay intaa. adduunku intaa waa kala weynnahay adduunka. afrika influensiga ay Soomaaliya ku leedahay meel kaloo kule ma jirto siyaasadda adduunka marka la fiiriyo. iska daa afrika oo dhan, waddamada islaamka oo dhan isku socod haddii la rabo. influence fiican baan ku leedahay, strategic baan nahay, important aan u nahay adduunka. inaan iska dhigno daciif oo caawinaad shisheeye iyo dalal shisheeye lala kala saftay iyo inta aan xayi iska dhigi lahayn, istaagi lahayn, qarankeena abaabulin lahayn, kheyraadkeena la soo bixi lahayn, oo aan dhihi lahayn dalkan annagaa iska leh. dalkan annagaa iska leh, Soomaaliyana la yidhaahdaa qabkeennu waa kaa, ma wada shaqaysanaa, maxaan ku wada shaqaysanaa? adduunka la shaqaysta, go'aankiisa asoo iska leh. dad nooca ayaan u baahannahay inaan noqonno, waana nahay, ilaahay waa naga dhigi. laakiin markaan dulli hoos galno oo siyaasiyiin qabyaalad ku shaqeeya oo aan wacyigoodu gaarsiisnayn qarannimo markay annagana hoggaamiyaan oo yidhaahdaan dadkii gobol hebelaa tahay ayagoo qabiilku abaabulaya, ulijeedadoodan ay tahay inay lacag yar ka qaataan UNDP iyo la yidhaahdo madaxa tahay iyo qadiyadba aan lahayn inaan hoos galno. meesha aan joognaan joogaynaa, sharfdhaca aan ku jirno ayaa sii soconaya. jamhuuriyadda Soomaaliyeedna waxaa soo gaaray dhibaatooyin aad u weyn. waa ka badbaadin karnaa
mana ogolaan karno waxa socda waxaan u baahanahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed inaan badbaadin waxaan ku badbaadi karnaa fikradaha qaldan inaan ka tanaasulno lana imaano fikir sax ah oo noo mideeya danteena guud ilaaliya xuduudaheena ilaaliya dhaxalgalkeena ilaaliya sharafta iyo xigmadda aan ku leenahay adduunka tirtirah sharaf dhici nagu dhacay ee na soo gaaray runtii tirtirah waxna ka barta dhibaatadu waa iskool waa cashir loo baahan yahay murti Soomaalida waxay leedahay masiibadu adduunyada iyada u macallina dunidii malaasnayd maskax lagu furfuro iyo maxay ahayd mamiir in loogu sahan tago waxa bari mushkiladaha waa murti Soomaaliyeed mushkiladaheena waa inay macallin noo noqdaan na gaarsiiyaan meel ka fiican meesha aan joogno markastaba maaha inay dib noo celiyaan mushkiladu waa macallin waxba laga bartaa qaladaad ka dhacay Soomaaliya waxa ugu horeeyay qaladkan soo sheegay ahaa in bulshadeena loo diyaarinin inay qaran ahaan isku maamulaan taa waa inaan shaqo ka qabanaa marka hore waa inaan bulshadeena transformation ku sameynaa waa xallin karnaa taa waxaan kaloo u baahanaa shaqo inaan ka qabanno oo aan xallin karnaa qaladaadkii ka abuurmay oo ahaa in dowladdii la qabiilayo mucaaradkiina la qabiilayo haddaan taa xallino sababta aasaaska dhibaatada Soomaaliya haddaan xallino kuwan waa xallinaynaa waxaan kaloo xallinaynaa oon xallin karnaa dhaqaalaha dalka inaan soo noolayno oo qof walba u sahlno inuu shaqo helo dowladdana cashuura hesho si aan gacan hoorsiga aan uga gudubno taana waa waxaan samayn karnaa waay kheyraadkii baan haysanaa wax walboon u baahanaan haysanaa waxaanaan maanta haysanin ma jiraan waxaan u baahanaa kaliya inaan is abaabulno fikirka khaldan inaan ka tanaasulno cadowga ugu weyn ee Soomaaliya ay leedahay waa cadow gudaha ah waa cadow maskaxeed oo bulshada qabyaalad iyo kooxaysidiinad u kala qaybiyey midna waa siyaasiyiinta ku qaraabta labada arrimood ee qaybiya bulshada ama kooxaysidiinad ha noqoto ama ha noqoto qabyaalad ee jahliga ku shaqeeya qabka aan lahayn isu arka inay wadan baryaan inay maanta dalkooda xaqiraan dadnimadooda xaqiraan oo yiraahdaan dalkaas shisheeyaan hoos jooga maanta aan ka xishoonaynin dad noocaas quality noocaas ah waa cadowga Soomaaliya maanta ay leedahay loona baahan in laga qabto dowladda Soomaaliya ee shisheeyuhu noo dhisay iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya ee shisheeyuhu dhiseen kana soo shaqeeyay inay jiraan oo maanta kuwana loo isticmaalay inay noqdaan model lagu daydo kuwana la rabo in hadda la dhiso sida kuwaas oo kale loo dhiso si Soomaaliya looga takhaluso jamhuuriyadda Soomaaliyeed dowlad goboleedyadaas iyo dowladda dhexe intuba waxa maanta u cad shacbiga Soomaaliyeed inaysan u shaqeynin shacbiga Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed daacadna inaysan u ahayn qarannimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed laakiin daacad ay u yihiin shisheeyaha meesha keensaday una adeegaan danaha ay leeyihiin ay marqaati ka tahay arrintan haddaan waqti kale ku lumino oo annagu aan dhahno waxaa saxsan kan la jira Qatar iyo waxaa saxsan kan la jira Sacuudi Arabiya haddaan waqti isaga lumino ayagaan ka sii darannahay waxaan u sahlaynaa wax ay wada inay sii socdaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa xor dadkeeduna waa xor hoggaanka qaranka Soomaaliyeed ma aha hoggaan u adeegaya ama loo baahan yahay inuu adeego shisheeye waa hoggaan loo baahan yahay inuu adeego dadka Soomaaliyeed haddaba dadka Soomaaliyeed waa inay intaa maanta ogaadaan kadib ogaanshaha waajib waxaa ah in laga shaqeeyo in dowladda Soomaaliya inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed ay dhisteen oo ay leeyihiin fikirkeeda aragtideeda iyo awoodda lagu saaray meesha imida looga tuuri karo intuba inay shacbiga Soomaaliyeed leeyihiin Soomaaliya ha noolaato cadowgeeduna ha dhaco